الرحيم aniga waa nin dhulbahantaa oo ganacsatadii magacayga waxa la yiraahdaa Caanood Yuusuf Maxamuud aniga waa ganacsatadii ka soo jeeday Sool Sanaag iyo Cayn ganacsigeyguna wuxuu ahaa Hargeysa dabeedna xaaladii haddana halkaa ka ganacsan jiray qabti baa dhacday haddii qabti dhacday waxaan markii xaaladii soo afgay weyday oo aan ayaaba waxaan ku yiri suxun ka dhigay waxay noqotay inaan guuro oo aado goboladaydii marka haddaan guurayna ganacsigeygii oo dhan waan qaatay haddaan ganacsigeyga qaatay waxaan raacay shirkadii markaa ka shaqaynayay labada goboladoo kala shaqaynayay bixin group waxa weeye halkaa markaan marayay abdaal waxaan rabtay dukaankii oo dhan maartay iyo alaab waxaan raray dukaankii oo dhan baan raray oo dukaankii shaqaynayay oo dhan waan raray dabeedna waxaan raacay bixin group baan raacay haddaan marayay abdaal waxaa la yidhi dadka waa la baarayaa oo halkaa xajiiday boolis oo tuman baan ugu tagnay dabeedna waxa weeye walba dhegteedu way taagnayd dadkii waa la soo rogay halkaa 3 nin baa nalagu soo rogay saddexdayadii markii hore ismaanaan garanayn laakiinse markii dambe un baan adigu lahjadii iyo lambaradayadii markii la isu keenay baan isku hayb noqonay haddii aan isku hayb noqonay gaaraan nala soo saaray xaajiyad waxaan naga keenay saldhigga dhexe haddii nala keenay waxaa la yidhi saldhigyada dalkii sidii dadkii hore loo qaybiyey ha loo qaybiyo aniga saldhiggii dhexaa laygu reebay alaabtaadina la soo dego aniga alaabtaydii iyo waxaygiiba halkaasaan nalagu reebay halkaasaan adigu ku jiray dhowr habeen ilaa 2 habeen baan ku jiray habeen waa lay garaacay waxaa la yidhi lacagtan kaashka dollarka ee ku dhex jirta talaagada maxay tahay lacagtu maxay ahayd markaa lacagtu waxay ahayd lacagtii anigu mobilkay ku jirtay oo dabeedna ninkan qabqablaha ugu sareeya ciidan maleeshiyaadka Somaliland iyo shirkadan Telesoontu waa heshiis marka adigu markaan goboladii la hadlay waxa lagu yiri lacagtaada gobol halkan ba lacagtii waa laga baxayaa shirkadii Telesoon marka lacagtaada soo kaash gareyso lacagtii waan kaash gareystay ana marka haddaan lacagtii kaash gareystay lacag 837 dollar oo gacan ka dhiiba baa ay ku jirtay shandadii yar oo dabeedna talaagad baan ku dhex jirtay iyo alaabtii kale oo gooni u raran dabeedna waxa weeye alaabtu ma bagaash bay ahayd alaabtu waxay ahayd talaagad waxay ahayd deebeen maayo carwo waxay ahayd alaab kale oo iyaduna dhir dumni oo aan ka shaqayn jiray alaabtaas oo dhan bay dukaan waxay ahayd meeshaan ku haystay marka alaabtaas haddii subaxii ilaahay maantii habeen la garaacay waxaan ku ridaa aniga maxaad ku garaacsan meena mawaad lahayn nin ganacsada oo reer Somaliland markii hore baan ahaa nin ganacsado magaalada degan baan ahaa suuqaasaan deganaa adeebin maayo garxajiska dadkii aan la deganaa ayaa la barkadan saaxan jireen oo idin garaacaya noo garaac baa leeyahay niman odayaalaan garaacay nimankan garxajisku waa niman iyagu sidaa caatifad u leh maaha waxa weeye way soo hadleen waxyaada ninkan dan reer bari ahaado shaqaysan jiray ilaa berigii suuqa waxay kubteena wuu yaalay in badan buu shaqaysanayay anagu inuusan ninkani wax khalkhala iyo hawl uusan wadin oo nin ganacsanayo oo dadka wax ka iibsanaya oo la mid ahaa yaanu caddaynayna markaa waa la isii daayey waxaan ku alaabtaydii soo saara waxaa lagu yiri alaabtii lagu soo saari maayo oo waxaan alaabtii lagu soo saaray waxaad ka soo jeedaa gobolada Somaliland diidanka baad ka soo jeedaa qacdoonka wada warxataa la damiyaan loo sinay daalabteeda la soo saaro dabeedna waxaa la yidhi digreeto madaxweyne baa waxay qayaxaysaa wixii gobolada sheegtay maamulka gaarkaa doonaya inay la baxaan ka soo jeeda ee Somaliland diidka wixii goboladeennan xukuumaddoodu degan tahay soo gelaya ama ka baxaya ee gobolada ka soo jeeda digreetada madaxweyne waxay qayaxaysaa in wixii ay iyagana gacan lagu dhigo wixii hanti ay wataana la qabto haddii la qabtona ciidanka qaranku uu ku hawlgalo isaga ayaa u xilsaaray suu doonay uu ka yeelo isaga waa ku hawlgelaya mar hadday sidaasi jirta baan waxa weeye xaaladii way muuqataa markaa aniga xaaladaydii markaa haddana weji kale yeelatay maxaa hadeer baan ku idhi aad xaalaad iga doonaysaan
inaad haddii wadannada gacanta lagu qabto lasoo afjaro markaa aad soo gasho day ribooto baa la doonayaa marka xaaladii aniga wax iga noqoto markaas xagga u baxday markaa soo baxday marka xaaladii waxaan u soo baxay nin la oran jiray qoorwaaba waxay igu soo dhacday kelmadiisii ahayd maantana qudhaydiyo cabdoo qaban baa ahay mar hadday noqotay dee markaa qudhaydiyo khalay inaan la cararo markaa galbeed baan usoo baxay iyo jigjiga wajaale jigjiga halkaasaan usoo baxay maanta waa anigan dee jigjiga laygu wareysanayo aad igu wareysanaysaa waa sax waan gartay markaa dee xaaladaydu aniga saasay ku eeg tahay waan waayahay ninka alaabtaadii iyo marka maxaa iminka aad leedahay oo aan kaa gudbinaa ama dadka dhulbahantaan ama daaroodka ku daawanaya baan u sheegaysaa dee waxaan u sheegaya halkaa in ninka odayga halkaa lagu dhacay ee wixiisii dee hargeysa lagu dhacay ee weliba halkaa laga soo celiyey ee la garaacay dee aniga alaabtaydi waxaan u arkaa inay dhac ku maqan tahay caawa sidaasaan dee dadka dee s c ama dhulbahantee aan gaadhsiinayaa caalamkana dee waxa weeye waa cambaareynayaa xukuumadda muuse biixi anagu waxaan deganaa niman garxijisaan wada deganayn nimankaasi hambalyaanu hayaa wax ceeba kumaanu arag laakiinse xukuumadda muuse biixi oo anagu waxaanu hayaa waa cambaaraynaya